أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. magacayga waa Cantar Said Xuseen, waxaan wadnaa casharadii aan uga hadlaynay Excel 2013ka oo ahaay cashiro bilow ah oo aan rabnay inaan ku barno Excelka. casharkeena maanta waa cashirkii afaraad. waxyaalaha rabnay inaan uga hadalno waxaa ka mid ah wax loo yaqaan series inaan sameyno amba wax isku xiga number isku xiga in aan sameyno so series kaas amba waxyaalaha isku xiga okay qaybo badan ayaan arki doonaa. dabcan number kaliya ma noqonayo. waxyaalaha arkeena series waxa ka mid ah numberada isku xiga sidaan u sameyn lahayn si yar oo fudud inaan barno ayaan rabnaa insha Allah taala. sidoo kale waxaan baranaynaa bilaha sidaan u sameyn lahayn inaan barno u baahanahay. sidoo kale waxaan rabnaa inaan barano sanadyada sidaan u sameyn lahayn anagoo fiirinayna qaabka ugu wanaagsan ee Excelka aan ku sameyn karno. dabcan cashirkeena maanta wuxuu noqon doonaa cashir aad u gaaban. casharadii hore wuu ka gaabnaa doonaa anagoo rabnay in aan cashirkeena maanta aan ku barano wax loo yaqaan series. haddaba haddii aan aadno Excelka, haddii aan aadno dabcan markii aan rabo inaan number isku xiga aan qoro waxaan qori karaa anoo type gareynaya ayaan waxaan qorayaa 1 enter ayaan taabanayaa, 2 ayaan qorayaa, enter ayaan taabanayaa, dabcan 3 ayaan qorayaa, enter ayaan taabanayaa. haddii aan doosaas wax ku qoraa waxay noqonaysaa wax waqtigii in uu iga dhamaaday noqonaysaa oo waqti badan ayay u baahanaysaa inaan saas u qoro. haddaba haddaan u baahanaa kasoo qaad bal 20 number inaan hal mar aan wada qoro Excelka gudihiisa si aan u isticmaalo 20kaas number. waxaan ku qasbanahay 20 jeer inaan riixriixan ku qasbanahay wax loo yaqaan keyboard inaan taabto oo la koob qoro laba qoro sida hadda aan ku tusay. si marka arintaas aan uga baaqsano waxaan u baahnaa si yar oo fudud sidee ayaan 20 number hal mar aan ku qori karnaa meesha. okay marka ugu horeyso Excelka waxaan qoraynaa number 1 ayaan qoraynaa, enter ayaan taabanaynaa. dabcan number 1 markaa qorno dadka qaar waxay sameeyaan qalad ayay sameeyaan oo ah number 1 inay qoraan ayay waxay isku dayayaan waxa hadda aan rabo inaan ku tuso inay sameeyaan taas oo ay kala kulmayaan dhibaato badan. waxay sameynayaan meeshan ugu hooseyso fanaxda fill handle ayaa loo yaqaanaa. afar gees markay noqoto ayay dhinaca bidixda muuska horsan kuugu sheegay dhinaca midig iyo dhinaca bidixda uu leeyahay. dhinaca bidixda ayay qabanayaan hoos ayay u jiidayaan. saa ujeedaa marka haddii hal number aa qortid Excelka wuxuu fahmayaa in aad u baahan tahay in aad koobiyeysid ayuu u fahmayaa waxa meesha cellka ku qoran. godka waxa ku qorta wuxuu fahmayaa in aad koobiyeysid. haddaba control Z ayaan taabanayaa si marka Excelka aan ugu sheegaa inaan rabo inaan number isku xixigo aan qoro. number 2 waan qorayaa, enter ayaan taabanayaa. dabcan labadan number ayaan highlight gareynayaa anoo isticmaalaya leftiga muuskan oo isticmaalayo. dabcan waxaan imaanayaa fill handle-ka ayaan imaanayaa aba meesha ugu hooseysa cellka dhinaciisa midig qaybta hoose ayaan imaanayaa. okay marka muuskan u dhaweeyo waa ujeedaa wuxuu noqonayaa calaamad afar gees. okay leftiga ayaan qabanayaa muuska dhinaca bidix hoos ayaan u jiidayaa. saa ujeedaan numberku wuu badanayaa 5 6 wuu socdaa ilaa 20 ayaan geenayaa. markii aan ogaado 20 markii aan gaaro ayaan sii deynayaa muuska. saa ujeedaan marka numberada waxay noqdeen ilaa 20 number oo isku xigayo noqday. Excelkana sidaas ayaa ugu sheegay in aan u baahanahay ilaa 20 inaan sameeyo. okay mararka qaarkood marka waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in aad maxaa la dhahaye 1500 oo number inaa hal mar qortid inaa u baahan tahay. haddii aan dhahno hadda habkaan aan isticmaalno oo ah laba number u sheegaynaa hoos ayaa u jiidaynaa ayada naftigeeda waqti badan ayay qaadanaysaa. okay si marka si yaroo dhib fudud aan ugu sheegno Excelka waxaan qoraynaa numberka uu ka bilaabanayo numberka rabno. kow kaliya kama bilaaban karo. haddora wuxuu ka bilaabanayaa for example 10 ayuu ka bilaaban karaa. 10 ilaa waxaan rabnaa 1550 in aan si automatic hal mar aan Excelka ugu sheegno in oo intaas number inoo sameeyo. si markaan saas ugu sameeyno okay numberka aan rabno inaan ka bilaabno markaan qoro ayaan waxaan imaanayaa wax loo yaqaano editing groupka ayaan imaanayaa. filkaas ayaan fanaxda click siinayaa, left click ayaan isticmaalayaa. series ayaan taabanayaa. series markaan taabto dabcan serieska qaabka u sameeyay column waa hoos ayaan rabaa inaan u sameeyo. haddaan u rabo row inaan u raaco haddaan rabo oo numberada rowga lagu soo qorano dabcan rowga ayaan dooranayaa. okay step value-ga amba value-ga lagu darayo markasta 10 11 12 ma rabaa hal ma rabaa inaan ugu daro mise laba ayaan u baahanahay mise saddex dabcan joyskaaga ku xiran tahay. anaga xaaladdan waxaan u baahanahay inaan hal number le aan kordhino. dabcan stop value-ga
step value waan kuu sheegay waa numberkii la kordhinayo waa step value-ga stop value-gana waa numberkii lagu joojinayo waa 1550 ayaan ku joojinaynaa waxaan rabnaa marka 10 inuu ka bilaabo ilaa 1550 inuu geeyo hadaba intaas markaan sameeyo okay ayaan leeyahay saa ujeedaan nambarada way taxan tahay okay sidee ayaan ku aadi karaa numberka ugu hooseeya anoo korkaas joogo waxaan ku aadi karaa wax loo yaqaano control okay falaarta hoose down arrow ayaan hal mar click siinaya control ayaan qabanaya down arrow ayaan click siinaya waxaan imaanayaa meesha ugu hooseysa ayaan imaanayaa oo ah 1550 waana meesha aan ku stop value-gu waan ku joojiyo oo inta number aan u baahnaa in aan si automatically hal mar aan u sameeyo okay hadda u baahnaa inaan kor aadane control up arrow ayaan isticmaalayaa dabcan muuskana waa isticmaali kartaa hoos ayaa waxa uu garaangarta amba wheelka ku yaala muuska labadiisa dhinac meesha dhaxa garaangarta ku taalo amba taayarka ku yaala dabcan qof kasta soo u yaqaano ayaa riixriixaysaa amba waxaa isticmaali kartaa scroll barskan ayaa isticmaali kartaa dabcan waqti badan ayuu qaadanayaa saa ujeedaan markaan isticmaalaya garaangarta amba scroll barska okay keyboard shortcut-ka haddaan kuu sheegaya ayaa ka fudud oo ah control up arrow ayaa isticmaalaysaa meesha ugu sare ayaa imaanaysaa okay haddii aan u baahanahay inta in aan ku qoro dabcan bilaha haddii aan u baahanahay dabcan bisha ugu horeysa ayaan u sheegayaa January ayaan u sheegayaa okay haddii aan markaan u sameeyna row okay Feb ayaan u sheegayaa okay labada bilood aan rabo markaan u sheego waa highlight gareynayaa markuu fill handle-ka uu noqdo aftercase ayaan dhinaca bidixda muuska ayaan qabanayaa dhinacaas ayaan wadayaa dabcan waxaan sameynayaa 6 bil dabcan rowgan oo column-kan waa u sameyn kartaa okay bilahana saas ayaa u sameyn kartaa haddii aan u baahanahay sanadaha kasoo qaadbo 2010 okay 2011 haddii u baahanahay sanadahaas in aan inta ku sameeyo dabcan inta sanaan raba ayaan u sheegayaa waan qaadanayaa haddii aan rabo sanad dhaaf inaan sameeyo dabcan waxaan sameynayaa dabcan sanad dhaaf ayaan sameynayaa okay 2010 iyo 2012 dabcan laba sano ayaan boodayaa waan qaadayaa wuxuu sameynaya 2014 2016 2018 dabcan laba sano ayuu boodayaa hadba adiga qaabka u baahan tahay ayaa ugu sheegaysaa amba column ahaan ayaa uu soo hadhow fill handle-ka u jiidaysaa amba dhinaca rowga ayaa u jiidaysaa hadba kaa jeceshahay dabcan cashiro soo socda ayaan ku arki doonaa insha Allah taala anagoo trickskan amba khiyaanooyinkan aan si hagaagsan u isticmaali doonaa haddii ilaah yiraahdo haddii aan inta imaano dabcan waxa ujeedaan okay haddii aan rabo odd numberka dabcan odd numberka uu sheegaya waa tirada dhabanka haddii aan qaldaneyn okay marka laba number aan u sheego dabcan hoos ayaa u jeedaya dabcan odd numberka ayuu ku sameynayaa even numberkana waa tirada kisiga waaye haddii aan qaldaneyn dabcan fill handle-ka markuu aftercase noqdo hoos ayaa u jeedaysaa dabcan asagana wuu ku sameynayaa waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo wax loo yaqaano date-ka ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo oo haddii aan for example aan rabo in aan qoro wax loo yaqaano dheedad isku xixiga haddaan rabo inaan sameeyo dabcan labada dheeda aan rabo inaan excelka ku fahamsiiyo qaabka isku xixigaan ayaan sameynayaa dabcan hoos ayaan u jeedayaa okay 10 casho oo January ugu horeeyay ayaan saas ku sameynayaa saa ujeedaan qaybta ugu hooseyso uu isku ciriirsan yahay waxaan imaanayaa qaybta sare ee rowga ayaan imaanayaa column-ka ayaan imaanayaa dabcan double click ayaan leeyahay si aan ugu fit gareeyo amba aan maxaa la dhahay dheedka qarsanaa aan soo saaro saa ujeedaan dheedkana sidaas ayay noqonaysaa qaabka la iskugu xixijiyo ahayb cashirkeena maanta inuu ahaa cashir yaro gaaban oo aad u xiiso badan inta cashir lamid aan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh